عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال دمانتين سودا وهذا waxaan jeclaan lahaa war farxad leh inaan idin la wadaago dhammaantiin oo ah gabadhii inantii yarayd ee shalay children's service ama hay'adda carruurtu ay qaateen. alxamdulilah xalay saqdi dhexe ayaa gabadhii ilaahay gacanta ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ku soo wareejiyay. aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin intiinii ka qayb qaadatay ee jaaliyadii isu soo baxday reer Columbus iyo caalamka oo aad nagala socoteen. ilaahay ajar iyo xasanaad ha idin siiyo. waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa qaybaha kala duwan ee jaaliyadda culimo diinka, dumarka, dhalinyarada, ganacsatada, si gaar ah lawyer Ismaaciil iyo gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Cumar Xasan Dheere. khayr far badan Allah idin siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal oo walaalkiin miskiinka alle oo idin leh warbixintan ayaan idinla wadaagayaa farxadda leh. xaqiiqatan waxaad aragtaan carruurteenna oo la qaato Sweden, Denmark, Holland, Canada, Maraykan, qurbaha meel walba carruurta la iska qaato. maxaa keenaya? waxaa keena dayaca. jaaliyad isku xiran ma jirto, dad ka daba hadlaya ma jiraan, dad dhahaya annaga carruurtan qaadanayna ma jiraan, dad xataa xuquuqda haweenka iyo masaakiinta luqadda aan aqoon difaacaya ma jiraan, looyaro difaacaya ma jiraan, jaaliyad garab istaagaysa oo gabadhii waa la soo qabanaya, hooyadii irbad baa lagu duraya, waa waalantahay daf waa laga dafaya. wax ka daba hadlaya ma ay jiraan. wax aad iyo aad aan uga naxay. waxaa jirta dad loo yaqaano protected class of citizens. boolisku hamoodina inay dagaal ku hayaan carruuraha iyo nacam waa qaadanayaan oo children's service ay la yiraahdaa jirta hay'adda carruuraha. laakiin waxaa jirta dad la difaaco ayaa jira. dadka tabarta yar birmageytada waa difaacaa, sharcigu waa difaacaa. ma sida Soomaaliya kale oo ummadda la qixinayo, la kufsanayo, la dilayo, la dhacayo, la boobayo, la ciirsanayo, wax ma yeeraanka iska gowracayo ma loo anoo dharbaa ka jira. marka waxaa jira dad loo yaqaano protected class of citizens. protected class of citizens waa dad la difaacayo, waa dad xuquuqdoodii aan difaacan karin oo la difaacayo. maxaa ka mid ah oo sharcigu si gooniya u ilaalinayo? children baa ka mid ah, carruurta. waxaa ka mid ah seniorska ka mid ah, dadka da'da ama dadka waaweyn oo odayaalka iyo hooyooyinka iyo annagu aan iska dilayno iska dhacayna ayaa ka mid ah. protected class of citizens waxaa ka mid ah disabled persons. horta walaalayaal waxaan ka cudur daaranayaa teleefanadii xataa waa kala garan waayey. yacni shalay teleefonkaygi waa idin siiyey, yacni teleefonkaygii waa qarxay. messenger kastoo kale, whatsapp kastoo kale, wixii waan kala garan waaya. marka mid aan fiiriyaan garan waaya. gabadha warkeeda xamda iyo saan u kaalmeyn lahayn anigu lacagna ma qaban oo yacni dadka kama aruurin. dad badan oo dunida caalamka jooga, Soomaalidu waa dad naxariis badan oo leh lacag baan soo diraynaana waan arkay. marka waxaan idinla socodsiinayaa habkaan lacagta ugu soo diri lahayn oo ah xamda maxamed axmed xaaji saciid akoonka magaalada Columbus, inaad gabadha ayada laftigeeda lacagteeda ugu soo dirtaan. ma rabna wadaad baa lacagtii loo dhibay oo lacagtii wadaadku waa kala reebay, ama hebel baa loo dhibay oo lacagtii waa kala reebay. gabadha guri waad u godi kartaan oo waad dejin kartaan oo waad barwaaqayn kartaan oo gaaraad u godi kartaan oo masaaruuf baad u qori kartaan. allah idinka ajarsiiyo. waan ogahay dad fiican inaad tihiin, laakiin gabadhu waxba ma qabto. laakiin guddi kor joogto oo ayadii waardiyeeya oo ilmihii warbixinta soo idin siinaya. horta aan tan ka hadlo. marka walaalayaal protected class of citizens dadka sharcigu sida goonida u difaaco oo tabarta yar oo birmageytada waxaa ka mid ah carruurta oo ah tii hadda booliska waa la wacay ilmada dayacan oo neglected child balda ilma la dayacay. marka sharci boolisku assessment buu sameynaya, wuu imaanaya, wuu fiirinaya. laakiin dhibka jiray muxuu ahaa? gabadhan maxkamad kama qaadan ilmaha sidii aan kula doodayay booliskaba ama naagta aan kula doodayayba. waxay rabeen marka meesha ay taagnaayeen waxay wacaysay supervisorkeeda oo ay leedahay naag waalan oo ilmaheedii aan dayacan yahay ayaan ilmihii ka qaadan. warqadii baa la diyaarinaya. marka warqadaa la diyaarinaya boolisku waqtiga dheer uu meesha uu taagnaa. warqadaa la diyaarinaya, warqada booliska marka loola imaanaya. warqadu marka boolisku ilmihii waa qaadaya, xoog buu ku qaadaya. yacni barta kayska lagu diyaarinayay ilaahay baa marka na waafajiyey
inaan yur ka dhahno haddii ilaahay ku idmaayo dhurwaayadii aan ummadda isu soo baxday idinkuna aad soo ducaynayseen caalamka aad joogteen marka ilmihii xalay saqdi dhexe ayaa gabadhii ilaahay noo soo celiyey looyarka ismaaciil oo maasha allah nin dhalinyaro ah aad buu u dadaalay jaaliyaddu waa dadaashay guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed xasan cumar oo xaqiiqatan yacni nin jaaliyadda aad ugu dadaala oo isaga iyo looyarka aniga kale waa labada nin aad ugu dadaasha xasan cumar qofka lama xaqiro bani aadamka xabsiyada ninka taagan waa isaga guryaha hooyooyinka laga saarayo qofka taagan waa isaga qofkii waa argagixisa la dhaho qofka taagan oo qof kasta u imaanaya waa isaga wadaadkii la xiro qofka u taagan waa isaga laakiin jaaliyadii waa burburtay jaaliyadii waxay ku burburtay qabiil bay ku burburtay qabiil baan ku burburnay waxaan gaarnay in East African Community jaaliyad la yiraahdo oo Ethiopian ah inay ku shaqeysato magaca jaaliyadda Soomaaliyeed kadib markii jaaliyadii Soomaaliyeed qabiil ay kula tagtay xagga reer fulaan xagga reer hebel ninka reer hebel laga daayay reer hebel xagga u baxeen reer hebel xagga u baxeen sida ka jirta Yurub oo kale meel walba waa lagu baabaa marka yaa victims ah balaankii iyo dumarkii iyo carruurtii baa victims marka dadka sharcigu difaacay waxa kamid ah carruurta marka waa la difaaca walaalayaal wadanka kan Mareykanka inaguna carruurteena inaan difaacno waa loo baahan yahay oo qax aan ka dayno oo nabad darrada aan ka dayno oo qabyaaladda aan ka dayno oo hubka aan ku xambaarayna aan ka dayno oo ilaahay uga baqno subxaanahu wa ta'ala nabad baan u baahannahay seniorska waa la difaacaa oo sharciga qaanuunku waa difaacaa waxaa la difaacaa disabled persons waa dadka loo yaqaano protected class of citizens dadka sharcigu sida gaarka ah u difaaca Mareykanka dadka curyaamiinta ah ama maskaxda curyaanka ka ah ama xubnaha ka ah ama indhala ama dhagala ama lawala ama waa difaaca sharcigu wuxuu difaacaa emotionally challenged individuals dadka maskaxda laga gumaysto dadka maaragtay yacni ciilka iyo carada la baday dadka maaragtay lagu tuntay dadka xuquuqdooda inta laga dhacay laga inkiray sharcigu waa difaaca nin baa nin dhacaya dilaya geeli soo dhacaya loodi soo dhacaya ariga soo dhacaya landheeranahay baa lagu leeyahay nin baa loo imaanaya dhirbaaxa lagala daalaya beerka laga garaacaya shan baa lagu tirinaya aabbihi hooyadii hortiisaa lagu dilaya halkaasoo marka sida yaanyuuradii saasiya gabar baa ninkeedii lagu hordilaya hadday afka kala qaadana baas baa afka looga tirinaya يعني dadka marka qofkii marka waxaad arkaysaa dumar badan oo facebookyada ka qaylaya oo le saasaa la ii galay sharcigu waa difaaca ama mid la kufsada ha ahaado ama mid la boobay ha ahaado ama dad la boobay ha ahaato ama dad la bire la qaystay ha ahaato ama dad beerahoodii guryahoodii la qaatay war sharcigu qof kasta oo يعني maskaxdiisa iyo caqligiisa inta la dhacay la boobay loo xog sheegtay haddana emotionkiisa iyo dareenkiisa iyo damiirkiisa la dilayo sharcigu waa difaacay waa mayeeraanka dadka iska dhacayo oo iska dilayo iska boobayo Soomaaliya oo dhan marka dadkaas u badanta meeqa qof baa la dilay meeqa qof baa inta la dilay waalidkood hantidoodii la dhacay meeqa qof baa maaragtay ilaa hadda hantidoodii la haysta meeqa qof baa maaragtay hadii ay ku idmaayo maalin walba aabihii la dilaya ama hooyadii la dilaya ama la qaxinaya ama maaragtay magaalooyinkeena Soomaaliya oo dhan meeqa maaragtay gabar intalan ba miskiin ah baa leeyahay yani waa wariye qabta hadii la xira ninka kan waa wariye qabta ku tuura ninka kan wuu hadlay ku tuura yani dhirbaaxa lagala daalaya dadkii sharcigu marka waa difaacay dadka loo awood sheeganayo ama qofka inta la iska xirto sanado la iska haysanayo hadda waxaa weeye waxyaalahan ka dhaxay waxaa ka mid ahaa kuma farxin in magaalada Boosaaso la weeraray hadday se yeeshee erayadii 400 oo maxbuus waxaa la yidhi oo maxkamad sugayaal ahaa nacam in badan oo ka mid ah argagixisa waa dhici karta inay yihiin saraakiil inay yihiin argagixisa laakiin haddana in badan oo aan kayskoodii dhinac loo tuurin waxaan codsanayaa marka dadka xabsiyada laga buuxshay halka kan Mareykan 24 saac gudahood qofka maxkamad waa in la keeno dadka maxkamadaha ilaa iyo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Burco iyo Caabud Waaq iyo Buulaxaawo iyo Garawe iyo Galkacyo iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo meel walba iyo Dhuusamareeb war dadkan maxkamadaha inta xabsiyada laga buuxisay arigii la iska xareysanayo maxkamada la keenaynin sharciga iyo qaanuunka iyo diinta islaamka waa difaacday dadka maxkamadaha la keeno qofku sharci wax ku cadiyiin hal ugu cadeeyo waa la shabaab ku cadeeyo lama cadda Soomaa sida ولا تنسى هي قفك كنت أنا ببيع على سجاح رئيسنا waa khalad
marka sharcigu dadka uu sida gaarka u difaaca kamid caruurta children seniorska kamid disabled persons dadka curyaaminta maskaxda ama jirka emotionally challenged individuals dadka inta loo xog shibto cabsida la geliyay oo maaragtay aan isdifaaci karin sharcigu ka difaacay religion dadka diinta wadankan waa lagu difaaca anigu muslim baan ahay intii diinteeda igu ceyrsanaya sharcigan maraykanka wuxuu qabaa in laga difaaco qofna diintiisa kuma ceyrsan kartid waa inaad marka dadka nabad gelisaan dadka Soomaali Kiristaanis sheegta oo inta soo fariista Ilaahay caayahaya oo Nabi Maxamed caayahaya oo Quraanka caayahaya oo diinta caayahaya xaq uma leedin waa in Facebook-gooda laga report gareeyo oo aad ka xirtaan hadii ay ku idmaayo taas sameeya hadii ay ku idmaayo ayagana in waxooda laga caayo nooma banaana wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah fa yasubbu Allah adwan bighayri ilmin anbiyada ay caabudaan sida nabi Ciise iyo waa jecelna waa nabi Ilaahi Abdullah wa rasuluhu قال إني عبد الله نبي عيسى وعيد أدونك إلهي بانا هنرك يا صومالي فلا ورثوا الله يكسر سلحنا نكونوا فلا ورثوا قال هذا هو إحنا قلنا حوي وحاكروا الشرع وضن كان مريقا قال يا كلر تذكر مدمك لو عبريو أما هو مدو أما هو عدان أما هو جدود شرع هو دفاعي مركا people of color شرع هو دفاعي مركا تذكر مدو ولا سكتوا قنيو أينا سجوني شرع إلى عليه هذه يقولون race قفك يعني قبيل لو عيرسدو شرع دفاعي marka nin malandheer u leeyahay dadku iska leeynaya qoriyaan haystaa buu leeyahay ama hubban haystaa ama leeshay beelad baan haystaa wallahi waa in dilayna waa in leeynayna no sharciga afka ka garaacaya qabiilka landheeraha tangiya lagu sideynaya sharciga ku tumanaya dawladda ku tumanaysa no one above the law cadaan iyo madow ninka sharciga sharciga ma jiro أما white supremacism ده أما black race ده عد شرعية كسرعين سما جرت no مركا كلر كقفك الوع عبرنا يو أما قبيلك أما رئيسك هذا رجع عليه شرعية قفك مسكين كدفاعية سيدو كله citizenship كله شرع قدرت كعين كاس مثلا بقى violation كوسمي ترامو كله أو يريد ضدك أمريكان كا ضد جونية أو مسلمين أيان أديدي وشرع درة شرع دفاعية ضد كاس وشرع درة شغلة ضدك جونية كما شقين كران وطن كأول شيء no marka waxa weeyaan war dadku sharci badan baa leedihiin oo xuquuqda sharciga uu dalku u ilaaliyay marka waa inaad barataan hadii ay fidmaayo veteran status waxa loo yaqaano waxa weeyaan waa dadka halyeeyada ah fiiriya sharciga Mareykanka si gooniya ya dadka halgamayaalka u difaacay halgamayaalka si gooni u difaacay halgamayaalkeena marka aan difaacano ya waa waalayahay waa kan iyo ورا أنا وهالجمانة هيقول خلدمين مسكين قال الله يدا سمنا فارن هيو أدون هالجماعة كاكلنا وهالجمع دولة ديننا وهالجميال يا ولاش الصومالية وحوق دولكنا وهالجميال دولة ديننا عند سنو دعاية درخيص بنت أنك دينه دلك ينا دور شهر لا أهدو سيستم لا يقانا هلا أهدو هاي حاكله ايربورك انا لودي علي مهدي ما حكسو دوين لهينو نمانك مشرحين تابا هو بيري لقلنا ايربورك لودي دي وحاس واعب ميتك علي مهدي يان وحكسو دوين يا هوبا نقليه وروحس واعب قال يا قبرها ماذا قال يا كنت كذا جنازه لا يدين ما ديدين شيخ شريف واتقنا ما شاء الله مدحوينه قرب كسكوايه يعني ما شاء الله واتقنا عبد حاش ما شاء الله مدحوينه قرب كسكوايه قدوميه مرسل waxa kasta meydkii baa tala siyaasadeynay war ilaahay ka baqa marka waxa weyn walaalayaal dadka xoogga dalka ee dalka u dagaalama sharcigu si gooni u ilaaliya halyeeyadeena qaranka iyana la ku dirin qabiil kasto ay yihiin haramcad gorgor nisa hadii ay ku idmaayo danab booliiskeena war ciidamadeena hadaan nala ka dacaayadeeyo ma ciidamada Uganda rabnaa war ma ciidamada Tanzania rabnaa war ma ciidamada Kenya anaga shakina loo ka gelinaya يعني لك جلينين وسجوني أو إلى عليها dadka loo yaqaan protected class of citizens waana mid ugu dambaysa waan gabadhii baan warkeedu soo gudbaya genetic information dadka maaragtay jiinkooda ama genetic matalan ba aaba wuxuu dhalay ilmahaas cudur la iska qaado oo ilmo aabihi ka soo gudbaan oo ilmaha u gudbaan marka in la iska cirsado aabihiisa kansar qabay ama waa laga fiican yahay walaalayaal qof cudur haya in lagu cayrsado oo lagu dilo
ولا لي ما دينت الإسلامكو وحين فرت إلى أن حريصنا دتكاس أردن واردكي دتك جبوبي ضعفاء دتك مساكين والصوماليين أنا سجر منه يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء صومالي جول عايز كدينه صومالي ولا لنا إيه البنا سكينا صومالي قبيل يبين ينين الكل أنت كسر رجال كان يدين صفرستا ضرب بلايا دعدي ورا حساسي وحبا يدين تلمس نبض بان أبهنا دجال سكيا مربنا 2001 منا دجال مربنا ولا اللي مي عدالة إن الله يأمر بالعدل إلهي عدالة دون فري حرمينا دلكينا دولة مدينة دعاية الرخيص كبينته بالتوجير مالا كلام هاوسي فيسبوك تويتر ماسنجر ويب سايت حبايد انت رميسه إلهي كعب صدر إن هذا السفر بانا هاي وحنوصل على قبل كله وقبر أيضا نستوكل إن هدينا يكود معي بان أصعدها أيضا ننكيد هدينا يكود معي هدينا يكود معي أي كلا تجينا إلما عرورنا هذا الشيء إلى شرع إن مرك أمل له إن هدينا يكود معي وحويان السفر بانجليه إلهينا يقعد سيو ولا ليالو مرك حويان هلا سجر مدو إن قبل الشرع عن قيلنا رواقني بوليس كلا ضدني أمدي شاريدي أن أدينا يكود ما رواقني إذنكو أشر جريسين لا إذنك أجرسي أو مال والبعد جرسين وركي سدك دقو كفافي الله يركي بصباحي هو يدي بصباحي جناستي بصباحي شاريدي بصباحي كلين بمرتي صباحي فيري محاك دعي وحد عطي دلك كان ضدك حكومة حلو يقولوا we the people شعبك سجالين أص صومالية إسبارو ما ديك كرتو تورش ما ديدي كران نبدأ ما ديدي كران هرمرك ما ديدي كران على كعبسك ما ديدي كران ويعلقوا شيء ما ديدي كران ننقدوا مية قبلها ديدي إياه ما ديك كران والله ما ديك كران وأنا لا صحيح يا كل قدنا إيمانيا يعني وراقينا وسو جالس already ولا صحيح هو سكوا عن مسك فورمولا ننتي كران مر ننتي دينا سبويلر وقصوده تورش العادية ما قال عيدا كحوق الدل كره وحي حق لين يدولد أمنية إلى ليان ماشي حبة قش كتير ماشي نين مافيا أو حبة ريدة هي إلا قبته واجب ويه إن ذلك إلى لي واجب ويه لكن يان دورنا قفلوا بنينك أدو عدينيس صندوق أوريد ولا لو صوماليا وإنا أديروا طلعوا ولا لو قارئ لكن ذلك نجومينا نو إذا كحوق ذلك ها إلى ليان هنا لا إلى لي ما ده حدا إننا حرما وهنا وأستنقرن شن يتمنك بيشة يا شن يتمنك بيشة محكمة دي بدأ إنه طالع بدأنا أنو دقالنا ينال كم مشغولين سلام أنت شركة فرمية أو الصومالي ده وعشان يتمنك يعني دولة ده بدأ كولا ناكياتي نقال جيمس وون هوست وقول شيء يعني لما كان قبل هذا هالك جاري واحد جارسي جارسي حالنا لقى جارسي بيش عالم كجارسي يوروب جارسي وأنا كان دولة يوروب جارسي الكاس ده كنا عندي دفاع عنه يوروب ملهن أمريكا ملهن اتكلم ملهن أنا قاله ما قال لسان ده كنا عندي سنة دولة دينا نتحجرنا أما يان دورنا ولا ليالو دور شهر هذا نبكر هلا تشوشيو عياد بين دور رخيص كده هلا تشوشيو إلهنا هلا قبقو دمر كي عيال كي دلنا واضح يعني رب العالمين هلا قبقو أنا وقربوا وقضى يعني وضيال وكل عيال سوق ما كنا قلنا دمر هشاجن مسؤولية ما جرتو نوال بقى بدأ على وش أبو حنا هي مركزه ما بيقانا بقى وحوي واحد مغلى جبر داريان وشالي مركان عجلة عندوبي إني ماشي لسويمت وحيلا أنا جيت كي شروطة من كل حرطيبة ما بقص على ترجور يا عرق على عروق ولا ما يتر وأطلع عن ويد أصلا هذا واحد مسؤول أسجرين وعروتك كل قرصنية وعروتك على ورقبية وإلهك على بقية وبحرام بعروتك إن هذا كل شيء المركز صومالية كلها هذا هو النرجع هاي جبر مسؤول هذا الجرسانين وإلهي كبقيسة شهوة هذا إلى صوماليا كصدق حق جيبياك دلائي قد ماي حمدة وحين وقبها عند الجرمد حمدة محمد حاج السعيد وهير بوصاصة جرمد بينه وقبها عند وحات فرطان حوالده مقعيدة كالصقر مقالة كولومبوس أو هاي موالنا حبض مقبط وقبر أموله خاطر بدن بقى يصوعي خاطر تصوح أي شيء أموله عذر كل عاجله أو سلب بوقان أمولو في شمال الغرب المالينية أمولو إذن كان يقانه كبدو حنانا مهلين عد أمول بحس مهلين إهل يقرابا كان حس مهلين أن رنت أعطاني شيء إهل كبرناك صورة بوليس كان وعي نعم
هذا يسكب بغضي المهنة ظروف بقى مقتي واو صومالي بقى وعي قربيه صومالي بقى كوعي ككولد شاكو حراي ودات كابولس كوعي مساجد كوعي حلاي هي إلهي لا قبقه ومضوا استاجتو قبل مركب مقعد وحالها أنا قد بدن بقى الصوعي حدا السعودة قبل كلام السعودة والله أنا وإيران بيني دين شيء حدا السعودة لعقنا أنا مقبنين لكن مقعد الصغر حمد محمد أحمد حاج سعيد قبلنا كردبان مقالة كولومبوس قبل كأهاي نعم لاير كإسماعيل وكلا قدوميها تاليد وكلا حسن عمر لما أنت تخير الله سيو dadka ehelka ah nacam lacagtaas loo aruurinayo in meel ammaano ay gasho oo gabadhii laftigeedii gabadhii xalay gabdha Soomaaliyeed baa qaaday guri baa la geeyay fiican in loo qubeeyay baan aaminsanahay in dharkii laga bedelay in gabadha niyada loo dhiso dahab loo xiro loo labiso loo xiniyeeyo niyada loo dhiso ilmaheedii ay aragto ilmihii waxa lagu wareejiyay walaasheed ولا شيء بالوريجي ولو خلط هيد مركو ربع إهلكو إني قبل أقول كسارة لكن هبريرت بالوريجي هبريرت مركو هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم هبريرت وهاي مركو تاسوا إنه نقول كل جن الحمد لله عندنا هبريرت بقى قبل لي صغير قاعد قعنت كويسة قبل لي والسلب البادية ما هو قبل له المها أباها علي أنا ما هو عيد الصومالي كيهي لكن نن إسكاله يوتيوبره oo iga soo wacay Minnesota iga soo wacay oo aan jeclahay isla beesha ma jirteen inuu yahay oo ehelkay iyo tolkayga ah wuxuu ii sheegay aabaha ilmaha dhalay inuu ogaadeen yahay inuu ii sheegan jeclahay marka gabdho ogaadeen waxa soo wacay way ilmeeyeen waxay dheheen alla iga inantanadii bay dheheen marka waxay dheheen waa idan gabadhaas waa garab istaagayna bay dhahay marka qabiil gooniya ma ama hooyada dhashay aato ama aniga aato oo ah miskiinki alle oo ah ninka matala gabadha oo aabaheed oo kala ah oo ah walaalkeed oo kala ah waxaan leenahay marka walaalayaal qabiil maaha anagu qabiil ma naqaano laakiin kaliya waxaan inkugu sheegay li tacaarafu sababtoo dad badan baa ii soo qoray waaya gabadho yaa dhalay ninku yuu yahay taleefankii waa qarxay waxaan hadda arkay walaalkay kabtan ayuub soo wacay khayr allah ku siiyo jazakallahu khayr walaalkay waa hadli doonaa insha allah inkastoo safarna aan ahay ولكن كسوع إن شاء الله مركب ولا ليال خير الله ينسيه هلو جروب حمدة وحيوبها أنت جري إن أقدنه جري إن أقدنه المهد اللي قاعدنا يو كبرنا جري وأقدر كرنا جري أن أقدنه هو يوين ككلاء الصوماليات الشنطة قارضات كل بنه هو يدلانك إلا جرمده رد الصوماليات ده ساقحي إلى هذا أنا بدو جديدا السوق جرمده علومده وحنكله سجارة إلى هيك بقى ولا ليالو منبركي إذن كهست النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذن كهفردية ولا ليالو لعقتي صومالي شايف كنا يكون شرتاه مالك لما شرت حوالي ده نكه استوى وداد شركة دوي نكه استوى وداد ان دهبشيل إيو هرمود إيو البركة إيو تاج إيو وحا استوى وداد ولا ليالو مال والبقى شرتان إلا يجدون أبار بالله بابايا ورد العقتان واتكلم نيسان إلهي كبقى مساجد يدا العقد لو أروريني إذن كاتشوه برنامج هويوينك يدلانك اللي قد دفاعي وانا تمسان المهن أتكهر إيسان نكتوشي وحاس المهن لما قادن كرو طب اسكو حيران هدي لا يوروب ولا أمريكا لما قادن كرو لكن وحان جرين جاريات اسكو حيران ما جرتو ضد ديران أودي كرا بوليس حق مالي الماهي قاتد بوليس ما حقوله ياكل بوليس ما حقوله وما له حق نقاط وما له لكن ماله ضد هاللي كرام ماله وما ضد كي يورم وقرد أساس له ركنية صوماليا ضد كي ما اللي كران سقالني مشرح مدعوين أنا ما السلطة يعود على المحيط مشرح مدعوين عوض ماله حتى ورقاقي أرشي يقول لي ما قبل مشرح معنا عوض سامي متيد وبين كخيب قال الشركة سكفريست قوي بتسوي يلا هذا لكن صحيح عيال متين ظلمي قد يا مركي يقدر 4.5 بحلوق بصدق إلهي كبقى اتقوا الله نبض ما ربنا نقو ما كانت على الرقة الصومالية اتقوا الله كنت شايفين مشرح من الحوين أنا ما ودا الله معي الشعب أنا والشغالة يقدر يكتر يدري من الحوين ربعنا نقضي شغالة من الحوين يدي بتوي معناه يدو
musharax waa intaas walaalayaalow waxaan rabaa inaan shaqaale noqdo oo shaqada aan rabtid maxay tahay waxaan rabaa madaxweyne shaqada madaxweynaha inaan qabto madaxweynaan idin noqonaya shacabkayow idoorta waa intaa macnaha musharax arjigii lagama qaban guddiga doorashada arjigii kaama qaban laguma soo baarin dambiile inaad tahay shuruuddii ma soo oofisay lacagtii fiigayd ma bixisay shahaadadii inaad musharax tahay ma lagu siiyey maya qabqablaa tahay marka dagaalyahan baata jirri baata ilaahay laga boqo sharciga hala ilaaliyo ben wey musharax waxa la yidhahda ma jiraan musharax baan ahay maxaan ku dheera waxba kuma dheeri shacabow waxaan leenahay marka walaalayaal dadka dhakhtar hanad oo isaguna gabadha ilmaadeer yihiin oo nin beesha cali suleymaan iga soo wacay dalka sacuudiga doctora aad baad u mahadsan tahay adiga dhakhaatiirta kale iyo dadka Soomaali weyn ganacsatada sacuudiga jooga jaaliyadaha imaaraadka meel walba jooga dadkii waa soo wacayaan ilaa Soomaaliya ilaa Boosaaso ilaa South Africa ilaa Nairobi ilaa Europe waa laga soo wacaya gabadhaan yaan loo kala harin xamdan yaan loo kala harin haddaad nasab tihiin aniga lacag jeebka igu gura idin ma dhihin dumarka Soomaaliyeed lacag aruuriya shanta qaaradood khasama inaad aniga ii dhiibtaan no wax badan baad aragteen nin inta lacag loo dhiibay lacagtii meel ay aadayn la waayey maya anu contributionka waxaan bixin karo ilaahay dartii aan u bixinaya diyaarna waana wixii aan baxsadayna allah iga ajar siiyo wixii aan baxsanayana diyaar baan oo inaan baxsado laakiin waxaan idin leeyahay walaalayaalow ganacsatada magaalada Columbus qof walba lacag isku qor ilaahay ka baqa guddiyaha la sameeyay degdeg loo sameeyay reer Columbus waa ceebaysantiin ganacsatada dadka ehelka ana si gaar anu ehelkan kamid ah si gaar shanta qaaradood xamda maxamed axmed xaaji saciid oo nin ganacsado xaaji saciid reer Boosaaso u dhalay reer Boosaaso idinkuna qaaraanka waa idinku qornay soo gurmada gabadha magaceeda ku soo qoraysaan laakiin dadka guddiga u soo sameeya idinku u soo magacaaba soo baara dadka wad baari kartaan dadka jooga ee gabadha gacanta ku haya ee ehelka ah ma aha qof iyo laba iyo saddex ma aha dad gacan aamin ah in lacagta loogu dhiibo gabadha ama ayadu inta adilay kudmay lacagtii aysan xogaa isku buuqin xogaa adilay kudmay isku khafiifin lacagtii ama maaragtay nin wadaada loo dhiibayo meel ay ka dhacday ma jirto no technology baa la gaaray gabadha magaceeda ku soo qora gabadhaas iska leh laakiin guddi telefoonada soo waca guddiyaa loo sameeynaya ceeb ma leh magaceeda ku soo qor xawaalada soo sheeg dhib ma leh haddii ay kudmayo magaalada aad joogtaan iswaca isu taga dadka Columbus soo wac looyarka soo wac jaaliyadda Soomaalida soo wac lawyer Ismaaciil lambarkiisu halkan waa nin lawyer weeye nambarkiisu waxa weeyaan lawyer Ismaaciil oo beesha cali suleymaan isagana nambarkiisa waa idin siinaya waa 648 waa lawyer-ka Ismaaciil khayr Allah siiyo oo dadaalay gudoomiyaha jaaliyadda xasan cumar jaaliyadda Soomaalida Columbus ayada nambarkeedu waxa weeyaan 6 mar labaad jaaliyadda nambarkeedu waxa weeyaan 6 Somali community in Columbus Ohio 6 waxaan ku celinayaa lawyer-ka nambarkiisa Ismaaciil oo nin beesha cali suleymaan oo ilaahay khayr asiiyo ahaa jaaliyadda dhanba gurmatay xalay saqdi dhexe gabadha la soo celiyay gabadha habriirteedna lagu wareejiyay farihii laga qaaday gabadha la soo baaray lagu wareejiyay gabadha habriirteed baayis ma ogol yahay nambarka lawyer-ku ma diidana nambarkiisu waa gabadha ehelkeeda ehelkii oo dhan baa soo wacaya ilaa Sacuudi Soomaali weyn baa soo wacaysa gabadha lacag baa loo aruurinaya lawyer-ka iyo jaaliyadda iyo ehelku iyo dhammaantiin is soo waca ninkii lacag u hayowna aniga fariin waa iiga tagi kartaa laakiin anigu safar baan ahay gabar kale oo Soomaaliyeed oo muslimad ah ayadana lagu xadgudbay yaan u 3 saac ilaa 4 saac yaan haddan safraya gaariga waxa ii staaran ilaahay subxaanahu wa ta'aala Soomaali meel kasta hal u gargaaro dhalaanka iyo hooyooyinka loo gargaaro meel kastoo joogtaan xamda maxamed axmed xaaji saciid oo reer Boosaaso gabadha dhalay nin ganacsato caana dhalay magaceeda lacagta lagu soo qoro Columbus Ohio dadka ehelka ana oo lacagta la kor joogteynaya ama mas'uulka uga noqonayana lawyer-ka waa idin sheegay iyo jaaliyadii iyo gabdhaha meel kasta dadkii lawyer-ka in siin doona information-ka laakiin guddi loo sameeyo lacagteeda aan lagu cayaarin
waxaan aaminsanay gabadha 100 kun iyo ka badan in loo aruurin karo waa loo aruurin karaa waa idin siiya numberka guri ha loo gado caafimaadkeeda lagu dadaalo quraan ha la saaro niyada loo dhiso ha loo qubeeyo make up loo sameeyo iyo xinigi iyo huruudi aanu wax rijiga la smarnaya maahane laakiin hurdo badan ha qaadato umul weeye oo ha la baanto faytamiinada ka badan iyo ha la siiyo ilaahay ha looga baqo dumarka mid walba markay dhashaa ayadoo mandheerteedii aan laga jarin baa ninkuna ka cararaya eelkuna banaanka dhigayaan wax u dooda iyo wax wadlana ma jiraan walaalayaalow marka safar baan hadda waana baxaya saasa inkaga tagay ilmihii saqiirka xalay saqdi dhexe ayaan soo celin hawshii aan qabanay aad iyo aad ayay u fiicnayd dad baa ka xumaa walaalayaal ha ka xumaanina hawsha aan qabanay waa fiicnayd hawl fiican bay ahayd idinkuna waa ducayseen waana soo gurmateen isu gurmada yurub boolis inkama qaadan karo isu gurmada علماء صباح عاملها صباح الشعب كصباح إذن كون لما تجي سنين وشالية النادي وإلماء النادي وعرورة النادي لا هذا أقول ماذا لا يركان لا ماذا يا إيدين جدا وعن عصاني أسيد وكلام إلا سمايو حرمها لو حنا نيو rehabilitation centers علماء شالية دو على ستكو عرورة النيارة دي طبعا كون ضد لأج أو النيارة أبغى كحيرا من الصوت مركز سامد والبريكورك اللي قريبية مركز سامد والبوحل إربان القدرية انت قبلود اربط لو قدرو لي والنتahay tii wax yar tiraadaba irbad baa lagu duraya waa walanta ilmihiina waa laga qaadanaya kaliyana waa laga baxaya waa la gaalaysiinaya hawayar marka isu gurmada meel kasto aad joogtaan yurub baa lagu leeyahay ilmihi war lama qaadanayo laakiin jaaliyad ma jirto ameerika waa la qaadanaya war jaaliyadii hal midoob war culumadii maxaa ku dhacay war kuwa dadka soo qixinaya ilaahay ka baqa marka waxa leenahay walaalayaal information kan wada helaysan xaqiiqatan yani hadda information waa in si basic Ismaaciil Sawca guddi gabadha loo sameeyo lacag loo aruuriyo lawyer-ka oo gabadha in adeerkeeda ah waa idin siiyay asagana guddi iyo loo sameeyo lacagtaasna si amaana magaceedana lagu soo qoro ilaahayna khayr ha idin siiyo lawyer Ismaaciil Sawca wixii information wakaas waa idin siiyay mar labaad lawyer-ka numberkiisu waa 6 4 4 نعم ضد بدن باي سوعي او ديار ولا اني دقاله iyo lahanti ay gabadha ay la garab istaagaan khayr allah siiyo walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala sidii aad warkeeda gabadha u gurmateen jaaliyada Columbus sidii u soo gurmateen jaaliyada qaybada kala duwan gudoomiyaha jaaliyada Xasan Umar lawyer-ka dumarkii ganacsatadii oo soo gurmateen shalay khayr allah siiyo idinkuna meel walba shalayta waad gaarsiiseen ilaahay aan ka ajarsiyo dadka iminka gabadhii haya hooyadii ama habriyarteedo ilmihi hayana ajar ay xasanaad Allah siiyo inta gabadhii ganacsatada iyo ehelka iyo meel walba dhaqaalaha aruurinayo ilaa Yurubna waa idin la socdaa ajar Allah idin siiyo soo gurmada khayr Allah idin siiyo lawyer-kana soo waca miskiinka Allahna waxa weeye telefonkii waa iga waxaysmay lacag baan ku soo diraynaa waan idin siiyay informationki magaceeda ku soo qora gabadha lacagteedana ha loo ilaaliyo lawyer-ka iyo guddiga kale ha loo sameeyo lacagteeda iyo xaqeedana ha loo ilaaliyo ilaahayna ha looga baqo subxaanahu wa ta'ala gurina ha loo gado hana la biiro masruufna ha loo qoro ilmaheediina ha loo socoliyo insha Allah ta'ala aad iyo aad baad u mahadsantihiin dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena Allah inoo badbaadiyo ragga Soomaaliyeedna aqliga Allah ku soo celiyo iimaanka Allah ku soo celiyo war xumata shiilka iyo kuwa naar afufka ummadeena isku gubaya isku darayana ilaahay subxaanahu wa ta'ala haanu yadikran ummadda Allah ka qabto ragga musharaxiintaana war xishooda war ilaahay ka baqa war waxaan siyaasi ma ah war waxaan waa mooryaannimo war heshiis baa la galay hadda la saxiixayaa doorasho u diyaar garooba musharax aniga waxba ima dheer anagu ma dheeri waa idin ka tagay walaalayaal khayr baan idin kaga tagay ilaahayna hawshan hadda aan u socdo ayadana oo safar dheer Allah igu guulaysiyo wabillahi tawfiiq wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina aamanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri markaan qaylinay isu gurmanay ilaahay barinay ilaahay waa noo hiliyay wa kaas hal habeen gaalada kuma dhaxlin hal habeen kuma dhixin habeen barkiiba maaragtay laga shaqeeyay la soo jeeday la orday laakiin sharciga waa in la waafajiyo lagu wareejinayo ehelkii faray laga qaado la baaritaan la sameeyo background check laga saxiixo waraaqo degdeg loo gudbiyay waa procedure la maro san idin sheegayna sharciga caruurta waa ilaaliyaa waa la protected class of citizens hatta booliska laftiisa aad u mahadsan yahay sababta caruurta wadanka waa la difaaca hooyooyinkana waxaan leeyahay shiishada iyo darogooyinka iyo walaalayaal iska ilaaliya oo yaan idin siinin oo nimankan daroogada cuna iska daaya oo ka dheeraada oo maaragtay hadii ay ku idmaayo yaa la idin balaynin oo maaragtay is ilaaliya oo caruurta dayicina oo ilaahay uga baqa oo sabra oo gabadhii dhibaataysanay jaaliyadaada dadkaaga u imow dhawaaq noo imow aan kula gurmanno ha qarsanin tii ilmaha laga qaadanaya jaaliyada u tag dadkaaga u tag waxaad qarsataa waa ku qarsadaan
انت سنك كتغي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الشرع الدفاعي وحكمده سجارش عروضة children seniors كدتك واوين disabled persons دتك عريانك emotionally challenged individuals وصومالي أو قف أبي ويدي أنت لجور دلي هذا لا داعي ولا بابي مسك هذا لقى خلينا يو religion دتك والو إلالية minority دين تين وإلالي سي دتك قالوا إن لدجن إلا إلاليو color ما كوا أنا كنا جميل قالوا بيجمع كوا أنا جميل كوا قال كان أمانة noogu yimid oo amnigana warsaday ama nala soo degay ama martida noo ah ama fiisaha siinay waa la ilaaliyo color iyo qabyaalad iyo race iyo jinsi iyo wadankan waa la ilaaliyay inaguna qabyaalada citizenship iyo dhalashada waa la ilaaliyay dadka haliyada waa la ilaaliyaa qof waaridkii ka dhaxlay cudur waa la ilaaliyaa sakane ala kulli inta sanin kaga tagay Allah u gargaaro